baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo shirkan qaadaha iyo qiimaha leh oo runtii lagaga hadlayo waxyaabo masiiri ah oo runtii muddo la soo waday iyo kuwa cusub oo hadda aynu hirgelinaba sida wasiirku sheegay waxa shirkan maanta inoogu uu ku saabsan yahay mawduucyada la idin sheegay oo ama secretariatku idin sheegay ama wasiirku sheegay waxaana loo baahan yahay maanta inaynu si mugle uga doodno mashruucan GBLG iyo wixii hoos yimaada waa mas'uuliyad wadareed la wadaago waxa ugu muhiimsan oo muddo soo socday maamul daadjinta GBLG mashruuca kana waanu malaynayo 2014kii in maxay tahay la bilaabay ilaa intaan uu soo socday aan qabo in laga gaaray waxyaaba maxay tahay laga faa'iiday waxyaabo badan haddana meel fiican noo maraya waxa kale sidii aynu marka u sii wadi lahayn oo meelihii looga baahnaa waxyaabihii looga baahnaa inuu gaarsiin lahayn baynu buu shirkana ku saabsan yahay waxa kale inagu soo kordhay maxadka oo inagu cusub baan u malaynayaa dowladaha hoose shaqaalaha dowladaha hoose yes waa dowladaha hoose wasaaradda arrimaha guduhu mashruucan sidiisaba liid bay ka tahay laakiin xafiiska kan aan joogo ayay hoos timaadaa go-aanka ugu dambeeya isagaa iska leh waxa wadaaga intan wadaagto oo dhan baa wadaagta waxaan rajaynayaa maanta waxaan maqlayay mashruucan hadal baa ku jira maxadkan dowladaha hoose xoogaa yaa xagee yaa maamulaya sidee loo maamulaya yaa go-aan ka gaarhaya yaa maxay tahay waxaynu maanta go-aan ka gaaraynaa innagoo u wada dhan sidii aynu u dardargelin lahayn ama u bilaabi lahayn waayo hadda muddo ayaynu discussionkiisana wadnay waxaa loo baahan yahay inaynu uu hawl galo aynu hawlgelino go-aan ka gaadhno oo sida ugu fiican uu ku waa la qabaa inaan wax laga dayn sida wasiirku sheegayo oo sidii NGO-yada aynan u fakerin sidii uu hirgeli lahaa mashruuc walba aan kan qura ahayn mashruuc walba oo inaga dhexeeya sidii uu hirgeli lahaa tala wadaagna u noqon lahaa ra'yi wadaagna u noqon lahaa in allaale inta ku shaqo lehina ay ma jecli mana qabo in cidi maroosto ama gaar isu siiso yes cid baa lagu ogyahay mas-uul lead ka noqonaysa laakiin inta kale contributionka waa inay ku darsato oo taladeeda ku lahaato waxaan rajaynayaa waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa qolada soo abaabushay oo soo fududaysay oo aan waqtiga inagu dheerayn iyo hadal badan oo aniga wasiirka haatan ku soo koobay furitaankii aad baad u mahadsantihiin waa inoo furan yahay shirkeenni waa inoo furan yahay waxaan rajaynayaa inaynu ka gaadhno go-aamo midho dhala oo laysla waafaqsan yahay doodahana waa joogaynaa haddii alla yidhi markhaatina waa ka noqonaynaa waana kala maxay tahay kala asaan garayn doonaa haddii alla yidhi iyo meesha ku intiheeto intaba waynla ogaan doonaa waynoo furan yahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu